بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا مقالكنا maanta waxaan ku arki doonaa dabcan saaciibaanka maqaalkana ku soo aragteen bal waxyaalaha ugu muhiimsan ee aad ku dooran karto hadda istay computer iibso meelaha ugu muhiimsan aad computerkaaga si waxyaalaha aad ku dooranayso computerkaaga dabcan mawduucan hore ayaynu muqaal uga diyaarinay dabcan laakiin wuxuu ahaa waqti ka hor hadda hal sano iyo xoogaa ka hor buu ahaa muqaalkaasi dabcan waxaynu kaga hadlaynay saddexda meelood ugu muhiimsan ee qof walba computer iibsanaya uu doonayo inuu ka eego maqaal runtii aad baan kugula talinaa inaad muqaalka daawato dabcan xaggan cardska ayaan soo dhigi doonaa ama muqaalkan markaad dhamaysato isaga soo daawo ama muqaalkan post garayso hadda oo intaad isaga soo daawato kan ku soo noqo haddaba muqaalkeena muxuu kaga duwan yahay dabcan waxaa u dhexeeyay waqti oo hadda ilaa hal sano ka hor buu muqaalkaas ahaa marka muqaalkeena waxaynu ku eegi doonaa dabcan muqaalka waxaynu kaga hadlaa saddexda meelood ugu muhiimsan laakiin muqaalka waxaynu kaga hadli doonaa bal inaynu information intaa kasii badan iyo qayb walba oo computerkaaga sida choice-ka ugu wacan u eegi lahayd inaynu kaga hadalno iyo computerkaad iibsanayso dabcan choice-ka ugu wanaagsan oo aad u eegi lahayd meelaha ugu muhiimsan ee aad ka eegayso iyo meel walba waxay muhiimka kugu tahay ayaynu ku tilmaami doonaa dabcan sida aynu muqaalka horena kusoo sheegeen kana aynu ku tilmaamayno muqaalka hore waxaynu kaga hadalnay batteriga iyo CPU-ga oo ah maskaxda computerka iyo RAM-ka computerka iyo storage-ka computerka ama diska drive-ka computerka dabcan waxaanu kaga hadalnay saddexdaas iyo saad u eegayso intii yihiin iyo saad batteriga u cabirayso in computerkan aan batterigiisa weligii la isticmaalin inaan batterigiisu in yarna hoos u dhicin inagoo xitaa qaabka aad u check garanayso batteriga eegaynay iyo xisaabaad aad u fudud oo aynu ku eegaynay haddaba muuqaalkeena waxaan doonayaa inaan information intaa ka yara badan ku bixino oo dabcan qaybahaas iyo qayb walba meelahaad kasii eegayso aynu si khaas u eegno goro waxaan u baahnaa bal CPU-ga inaan ku bilaabo dabcan sida caadiga computerka afarta meelood ayaa ugu yara xasaasisan marka la eegayo haddaba marka la joogo CPU-ga waa maskaxda computerka hore waxaan soo tilmaanay in CPU kugu filan aad computerka ku doorato oo CPU-ga uu yahay adduunka computerka yahay Core 5 ama Core 7 ama Core 9 whatever ama Core 2 ama Core 3 ba ha noqdee inaad eegto soo kale inaad eegto speedka gigahertzka speedku jari karayo computerkaagu cabirkiisa inuu 3 yahay inuu 4 yahay iyo inuu 2 yahayba haddaba dabcan taas waa common oo muuqaalka horena dabcan aan ku soo tilmaanay laakiin waxaa jira feature CPU-yadu ay ku fiican yihiin oo la eego ama waxyaalo gaara oo CPU-ga inuu support gareeyo ay muhiim ku tahay muuqaal waxaan ku tilmaami doonaa qaar ka mid ah ugu hore waxaan u baahnay inaan ku tilmaamo waxa loo yaqaano virtualization inuu CPU-ga computerkaagu awood u leeyahay inuu ku ogolaado computerkaaga in lagu rangareeyo computerro kale isaga dhexdiisa waxaa loo yaqaanaa virtualization oo ah inuu CPU-gaagu awood u leeyahay inuu saan haddana ka horna tilmaamay lagu rangarayn karo wax hal computer ka badan taas waxay u fiican tahay tusaale kale haddii aad tahay arday bartaha aqoonta IT-ga ama aqoonaha kaleba oo aad u baahan tahay inaad waxyaalaha qaar computerkaaga aanad ku shubin virtualization aad ayuu ku anfacayaa personally aniga idinla hadlaya mostly computer aan isticmaalo oo aan virtualization ku isticmaalin way yar tahay waxaan u arkaa great advantage hadda waxaan arkaa sometimes computer aan support garanayn waana meelaha ugu waaweyn aan ka eego computerka anigu markaan si shakhsiyan u iibsanay computerada marka inaad eegto CPU-gaagu inuu support garanayo virtualization aad ayay muhiim u tahay marka waxay ka mid tahay CPU-gu meelaha ugu muhiimsan meelaha virtualization wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan markaad CPU-gaaga dooranayso talabaad waxa weeye inaad eegto CPU-gaagu dabcan saada korna idin tilmaamay speedkiisa oo ah dabcan waxaa jira iminka computerro marar badan hadda computerradu waxaynu aragnaa magacyo ay ka mid yihiin Core 7 Core 3 iyo Core 4 hadda waxaad arkaysaa aan idhaahda Core 5 waxaad arkaysaa computer lagu odhanayo waa Core 5 laakiin coreska markaad eegto dabcan say ka muuqato Core i5 macnaheedu waxa weeye computerkan waa 5 core internally coresku waa maskaxaha dabcan marka la yidhaha iminka computer Core 3 haddaad iibsato i3 ama core waxay u taagan tahay computer 3 maskaxood leh oo that means haddaan si kale u eego 3 qof waxay qabanayeen oo kala qabanaya ayaan tusaale kale ku soo qaadan karaa Core i5 waa 5 maskaxood ilaa iyo Core i7 markaad hataa imika tusaale kale editing oo kale isticmaalayso more and more waxa ku muhiim inaad qaato computer yani multiple cores si smooth waxa la edit garanayso oo bilaa interruption aad ugu edit garayso waana caqabado kaaga iman marka inaad iska eegto computerka coreskiisa tusaale kale waxaan anigu hadda hayaa computer Core 3 speedkiisu waa 3.0 ilaa iyo 4.01 gigahertz waa speed runtii aad aan oran karo marka loo eego computerada
intaan soo arkay ama inta listo computer speedkiisu aad u fiican yahay laakiin problemka wuxuu yahay coreskiisii ayaa laba ah oo dabcan waa laba core ayaa labada core kaliya ayaa wada isticmaalaya ilaa iyo 3.0 ilaa iyo 4.1 gigahertz speed gaaraya marka inaad eegto computerka coreskiisa saxda ah computer coreskiisa saxda ah iyo inaad eegto computer coreskiisa saxda inaad eegto iyo inaad eegto virtualizationka dabcan virtualizationka iyo computer coreskiisa waxa laga eegaa virtualization waxaad ka eegaysaa computerkaaga start menugiisa waxaad ku qoraysaa system information data system information wuxuu soo saarayaa application system information ku qorantay dhanka startida waad ku dhufanaysaa kadib xagga u hooseysa ayaad ka eegaysaa dabcan waxay ku xidhantay haddaad windows oo kale isticmaalayso operating systemka waxay markaan dabcan ka hadlay windows baan idiin sheegaya waxay ku xidhantay version waxbay ku qoraan mar waxay ku qoraan hyper virtualization mar hyper marka waxay mostly waxay dhigaan xagga u hooseysa marka dabcan anigu intaan arkay inta ugu badan waxay ku qoraan hyper virtualization dabcan muuqaalka dibadii haddii aan arko inay waxyaalo kale ku qoraan xagga hoose descriptionka inay ku qorayo virtualization waxay ku qoraan marka sometimes waxaa laga yaabaa inaad marka internetka baarso aad aragto iyadoo la qorayo vm-x oo ah virtual machine extension oo dabcan processorka ay u yaqaaniin dabcan marka inta la soo sameynaysay marka inaad eegto virtualization halka sidoo kale coreska computerkaaga waxaad ka heli kartaa inaad computerkaaga task barkiisa haddaad windows 10 isticmaalayso right click tidhaahdo deeta doorato task manager kadib aad dhanka processeska doorato performance-ga idhaahdee dhanka ku xiga processeska deeta CPU-gaaga aad doorato xagga hoose information ku qoran ayay kaaga muuqanaysaa in computerkaaga coreskiisu haddaba aan u imaado diskiga dabcan diskigu waa inaad ku doorato computerkaaga size kugu filan oo tusaale oo kale computerkaagu dee dabcan size-ka aad u baahan tahay haddii 1 terabyte aad u baahan tahay haddaad 500 gigabyte u baahan tahay laakiin waxaa jira laba nooc dabcan marka la eegayo speedka labada ugu waaweyn waxa weeye hard diskiyadu waa SSD mid la yidhaha HDD dabcan waxaa loo soo gaabiyaa hard disk drive SSD-na solid state drive baa loo soo gaabiyaa way kala dheereeyaan marka la eegayo HDD waa old waa hard drive old marka loo eego SSD-ga waxay isticmaalaan mechanical xogta waxay ku dul akhriyaan xogta waxay u nidaamiyeen qaab la yiraahdo sectors طبعا مقال بين كذا دونا waxa u dhaxeeya SSD iyo HDD solid state darafkan wuxuu isna xogta u kaydiya qaab la yiraahdo cells marka way kala speed fiican yihiin طبعا HDD wax laga yaabaa hard iska ugu fiican HDD-ga speedkiisu wanaagsan yahay inaad aragto inuu 30 ama 40 MB per second inuu xogta qaadayo marka copy iyo paste waxaad sameynayso SSD-ga waxa laga yaabaa inaad aragto 150 iyo 130 MB per second inuu qaado marka iyaga laftarkooda SSD-yada iyo HDD way si kala speed wanaagsan yihiin laakiin commonly aad bay u kala wacan yihiin SSD-gu marka SSD iyo haddaad computerkaaga CPU fiican iyo uu ku xiran yahay SSD iyo memory fiican computerkaaga runtii wuxuu dheereynayaa more ba performance-giisu noqonaya marka loo eego HDD-ga marka inaad computerkaaga markaad dooranayso HDD-ga haddii aad dabcan SSD heli karayso computer ku xidhan inaad ku doorato haddii kalena HDD inaad eegtana speedkiisa dabcan tijaabooyinka qaadaya aanu imaado batteriga computerka dabcan imika computerada badankooda dambe waxa la soo raayay waxa la yiraahdo fast charging marka fast charging advantage iyo disadvantage uu leeyahay laakiin fast charging say ka muuqato in computerkaagu si dhaqsiya u dabaysmayo runtii marka la eegana faa'iidadeeda aad u badan hadda waxa yaala agteeda computer dabcan Core i3 oo halkan ka tusi karo computerkan haduu idin muuqanayo dabcan wuxuu leeyahay fast charging waa Core i3 haduu idin muuqanayo wuxuu leeyahay fast charging waa kan idin sheegayay waa kan la wuxuu speedkiisu gaaraya 3.0 ayuu gaaraya ilaa 4.1 marka wuxuu leeyahay fast charging marka fast charging kaas wuxuu ka caawinayaa computerkaagu inuu kugu dabaysmo waqti aad u yar oo tusaale kale inuu kugu dabaysmo 1 hour marka inaad batteriga fast charging oo kale weeto inaad eegto batteriga cabirkiisa oo dabcan aad eegto muuqaalka hore aan la daawada dabcan aan idin kula talinayo ayaan ku eegnay bal qaabka loo cabirayso in batterigaaga hore loo isticmaalayo in kale marka waa inaad eegto batterigaagu inuu cusub yahay inaan batteriga kaydkiisii hoos u dhicin oo aan dabcan aanu batterigu markiiba dabka ama powerka ka lus kareynayn inaad batteriga u eegto haddaan u imaado RAM-ka computerkaaga waa inaad dabcan ku eegto marka batteriga labadaas ayaan kusoo koobiyaa waa inaad RAM-ka computerkaaga u eegto isagana in uu yahay RAM inafa marka hore
sidoo kale raamka wuxuu ugu muhiimsan computerkaaga waa inaad eegto inuu computerkaaga horta laba slot leeyahay raamka runtii qodobka aad baan ugu talinaya marar badan way adagtahay inaad hesho ram isku yaal tusaale haddii computerkaaga ku yimi 8 gigabyte ram waad u baahan tahay 16 gigabyte inaad geliso 16 GB oo ram oo isku taala oo hal device oo 16 GB inaad hesho aad ay u adagtahay marka la barbar dhigo inaad hesho 2 marka runtii ku dadaala computerka inaad iska eegto inuu leeyahay laba slot haddaba saad ku ogaanayso in computerkaagu laba slot leeyahay waxaad ku ogaanaysaa inaad tagto computerkaaga dabcan Windows 10 isticmaalayso inaad right click task barkaaga tago teeto task managerka aad doorato task managerka markaad doorato dhanka aad tagto performance-ga CPU-gaaga aan idhaahdo aad memory-gaaga doorato dabcan memory ama RAM baa badan ku qoran aad doorato oo CPU-ga ka hooseeya waxaad arkaysaa halkaas haddaad eegto memory slots طبعا ama RAM slots wixii doonaa ku qornaadaan hadduu ku yiraahdo 1/1 waxa weeye hal slot buu leeyahay oo runtii aanan kugula talnayn inaad qaadato ama dib kaaga iman karo qaadashaysa hadduu ku yiraahdo 1/2 macnaheedu waxa weeye ama 1/2 macnaheedu waxa weeye laba RAM buu leeyahay hal mid baan adimka isticmaash laba aan idhaahdo laba slot buu leeyahay hal midna waad isticmaash marka hadduu computerkaagu saada ku sheegay laba slot leeyahay waxa ka anfacaysa inaad RAM extra ay gelin karto kiisa horena aad u deyn karto laakiin hal mid hadduu yeesho even haddii slot daal si kiisa wax kaaga yimaadaan dhibi yani computerkaaga motherboardkiisii oo slot wax noqotaba si kiisa inkastoo aan cilad dhacda usually ahayn de waxay noqonaysaa inaad motherboardkaaga RAM weyday hal oo aanad computerkaasi isticmaali karin oo computer dhintay kale la mid noqonayo marka inaad ku dadaasho computerkaaga inuu laba slot leeyahay hadday tahay dhanka performance-ga iyo fududaanta inaad RAM kala gelin karto oo xitaa qiimahaan ku jaban oo dabcan markaas u baahato inaad RAM isku yaalo soo iibsato size weyna way ka qaalisan tahay marka loo eego RAM kii kugu jiray oo kale inaad dib u iibsato waayo way kala size weynaanayaan marka memory-gana waa inaad taagtaa sidoo kale computerkaaga waa inaad eegtaa markaad iibsanayso nooca RAM-ka computerkaaga gala tusaale haddaad imika eegto computerada Core i5 iyo Core i7 genuine-ka dabcan kuwa saxda ah RAM-ka gala waa DDR4 RAM-ka ku xidhma nooca RAM-ka DDR4 haddaad eegto computer Core i3 iyo Core i2 DDR3 haddii marka sometimes waxaa jirta computer iyagoo Core i5 aad arkayso DDR3 gala iyo computer aad arkayso Core i3 iyagoo DDR4 galo waxay ku xidhan tahay tayada computerka marka DDR3 iyo DDR4 farqiga u dhaxeeya waxa weeye DDR4 waa limitless ilaa hadda lama gaadhin computer RAM-ka DDR4 la sameeyo cabirka u dambeeyu gaari karo DDR4 hadii 8 DDR4 la sameeyo hadii 16 DDR4 la sameeyo ilaa hadda lama waa la wadaawn inkasta si kasta waxaad samayn kartaa size allaala size ka doonto oo DDR4 aad samayn kartaa laakiin DDR3 gu size buu leeyahay aan filayo inuu yahay 16 GB hadii aan qaldanayn marka haddii computerkaagu DDR4 galo dabcan waxay ku xidhan tahay kaad heli karayso tusaale kale hadda computerkan ay tusay DDR4 baa gala waxa computer kale Core i3 oo aan haye isagana DDR3 baa gala marka la eego DDR3 DDR4 waxay ku xidhan halka joogto sometimes DDR4 lagama heli karo dabcan haddii tusaale soo qaata geeyada Soomaaliyeed oo kale waxay badan tahay inaad si fudud ugu helin DDR4 laakiin DDR3 aad heli karayso inkastoo DDR4 ku tayahan wanaagsan yahay haddii dabcan 8 GB ama 16 GB oo DDR4 ku jirto waa inaf uma baahnid laakiin haddii 4 GB ama 2 GB oo DDR4 kugu jirto 4 GB DDR4 waad u baahato 4 kale DDR4 waxa laga yaabaa in haddii meelaha qaar dhib kala kulmaad hore helin marka laakiin waxa speedka fiican DDR4ka marka RAM-kana waa inaad noocyada eegto noocaad heli karto eegto dad u baahato inaad kordhiso nooca ku jira inuu yahay noocaad heli karto uu yahay inaad yadana eegto marka waxaan filayaa RAM-kana in aan ku soo koobnay labada qodob ama saddexda qodob ah in RAM-ku noocu yahay aad eegto iyo inaad slotiskiisa eegto iyo size-ka ku jira inuu yahay size enough kugu ah inaad eegto waxaan filayaa inaan intaa muuqaalka ku koobsano ayaan ugu talagalay aan idhaahdo intaan aan muuqaalka ku koobsano ayaan ugu talagalay waxaan filayaa inaad dabcan balaad xoogaa ka fahanteen aynu qayb walbana sii kala qaadnay CPU-ga iyo memory-ga iyo battery-ga iyo hard disk-ga iyo mid walba choiceska wanaagsan ee aad ku sii kala dooranayso marka runtii haddii muuqaal hore aynu kusoo barnaysaan hadda ka horna idinku sheegay dhowr jeer oo aynu kaga hadlaynay dabcan battery-ga iyo qaabka aad u cabirayso dabcan sidaad battery-ga u cabirto waxaad u baahan tahay inaad muuqaalka hore soo daawato oo aynu dabcan qaab aad u fudud oo aad u cabiri karto oo hal minute gudaheed aad ku helayso aynu kusoo bandhignay sidoo kale waxay sheegay haddaad isticmaalayso Windows 7 ama 8 task manager-ka oo dabcan aynu ku tilmaamnay inaad ku ogaan karayso slots-ka computerkaaga inta slots-kiisu yihiin iyo nooca RAM-kaaga
haddaad Windows 7 isticmaalayso haddaad Windows 8 isticmaalayso iyo haddaad Windows 10 isticmaalayso sida kale aad ku task manager-ka ku access garan kartaa waxa weeye ama ku heli kartaa inaad start ku qorto task manager kadib application-ka toos buu kugu soo saaraya dabcan waxaan idin tilmaamay Windows 10 baa ku gaara inaad ku heli karto inta imika ogaalkayga inaad task barka ka heli karto laakiin Windows 8 oo kale iyo Windows 7 haddaad isticmaasho haddaad Windows 10 laftarkiisa isticmaasho haddaad start menu ku qorto task manager uu kuu soo baxaya kadib markaad ku dhufato halkaas ayaad xogta inta ka badan ama siyaabaha hore aad tilmaamay baad dib u raaci kartaan dabcan muuqaalka intan aynu ku koobaynaa waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax ka faa'iideen dabcan haddaad saan rajaynayo muuqaalkan aad wax ka faa'iideen dabcan like inoo saar taas waxay naga caawinaysaa in YouTube muuqaalkeena u dad badan si una arko muuqaal muhiim ah oo wax tari karaya dadka haddii aanad muuqaalkan wax ka faa'iidin una aragto muuqaalkan mid useless ah oo faa'iido aan lahayn dabcan dislike ku samee haddii ay tahay markii kugu horeysay kanalkaad soo boqoto una aragto mid aad wax ka faa'iidi karayso kanalkana dabcan subscribe saar intaynu muuqaalka kan ku kulmi doono waxaan idin rajaynayaa annaga iyo idinkaba khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu